السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي ذا إيغو حيران مالك صدون تعالى ذا كجوكتان با ولاشين سمزم واي آد بعدي موضى السلام يا مالك صدوك سوغنتين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم waayadan sida la socotaanba baraha bulshada waxaa ka socda waxyaabo aan caadi ahayn ragga Soomaaliyeed iyo dumarka Soomaaliyeed is haystaan yacni qofba qofka kale wax ka sheego haba u badnaadeen niman waaweyn oo ma aragtay odayaal waaweyn inay maalin kasta shaqo ka dhigtaan dumarka Soomaaliyeed inay caayaan horta dad islaam ah nahay cayda waa xaraam qof ama rag in la caayo ama dumarka la caayo labadaba in is caayaan ma fiicno cos qof walba malaa'iga garbihiisa saaran mida kale siiba dadka qurbaha joogo ay ma aragtay nimanka ku wajahan yihiin maadaama rag iyo dumarkii challenge weyn ka dhaxeeyo oo raggii ciil ee uga cadahay ma arkino qaarkood walaalaha khayr Allah siiyo laakiin reerihii qurbaha intii aan la imaanin xataa hooyooyinkeena anaga soo wada badbaadiyay wadankeena markii dhibaatada ka dhacday anaga dhan waxaan soo koriyay xataa markay aysan dhibaato ka dhicin dadkii soo koray hooyooyinka u badan yihiin dadka hooyooyinkood inay soo koriyaan aabiyo hooyo kala tagay aaba dhintay maaragtay hooyo kaligeed ayaa dhexda u xiranaysa ilmaheeda soo kursanaysa si kastaba ha ahaatee hadda qurbaa lagu nool yahay qurbihii markii la yimidna raggii Soomaaliyeed dumarkii bay ka daba qaateen saan waaye kan waaye horta wanaag wax ka fiican ma jiro rag iyo dumarba dumarkiina sidoo kale ayagana dad ba aragtay waxaad arkaysaa oo ragga kulay ayaga xagooda iska dhicin iska caabin bay ka tahay sidaan u arko raggina waxay isleeyihiin dumarkii ayagana iska dhiciyo iska caabiya laakiin si kastaba ha ahaatee odayaal waaweyn oo baraha bulshada ku jira ilaaha weyn waaxid oo laga yaabo guurarkoodii hore inay kasoo xumaadeen dumar waaweyn way jiraan oo yacni dadka waaweyn waxaan ka wadaa waaye arag dad ah oo reer soo yeesheen caruur soo haystaan caruurtoodii waaweyn yihiin haddana waxaa arkaysaa meesha dadka dhalinyarada ah in baraha bulshada meelaha lagu maaragtay fiidiyooyo ugu soo gudbinayo oo waxyaabaha wax caadifad oo rag iyo dumarka waagii hore caadifad qabiil iyo waxbaa laga sheekeyn jiray qabyaalad laakiin hadda sheekadu way dhamaatay marka dumarkii bay noqotay caydoodii iyo xumaantoodii in la sheego haba ugu badnaadaan dumarka qurbaha ku nool in la yiraahdo dumarka qurbaha waa sidaan dumarka qurbaha markastaba horta maasha Allah tabaarakallah ilaahay oo saddexda xaq wuxuu u siiyay saddexda xaq ilaahay wuxuu og yahay waxa ay hayaan marka alxamdulillah ilaaha naga dhigay dumar qurbihina ilaahana keeno oo ilaahay ugu talgalay inaan ilmo yar ku dhalno ilaaha noo daayo hooyooyinkeen ama walaalaheen gabdhaheena Soomaaliyeed ee wadanka iyo wadamada dhanba meel kasta ahaataba ku sugan dunida dacaladeedana ayagana ilaahay ha badbaadiyo ayaga iyo caruurtooda rageenan dee allaha ayagana badbaasho dhib oo dhan Allah ka badbaasho laakiin raggii waxaan isleeyahay markii dumarkii arkeen inay wax walba qabsan karaan ciilka adduunka ayay waxay la soo fariisteen dadkoo dhan ma ahan laakiin ragga qaar ayay baraha bulshada la soo fariisteen sheeqan laakiin khayr Allah siiyo sheeqa khayr badan Allah siiyo oo duceynayaa Allah barakeeyo asaga iyo familkiisa iyo intuu jecel yahay oo dhan qofka xaqa inuu ka badan ma ahan xaqa runta laga sheegaa si kasta dadka taa isku haysaan ma aragtay marna xaqa lagama leexdo in Allah la yastaxyi min al-haq aayada quraan ahaba ahaydba ilaahay xaqa kama xishoodo anaga dad islaam ah nahay wixii xaqa inaan ka xishoona ma aha mid kale in iska hadalna ma ahan hadal kasta oo afkaada ka soo baxana waxa way malaa'ig baa qoraysa u diyaarsan oo aanan daaleynin ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ayo ay ahayd aayadi hadal yacni qof kama soo baxo raqiib iyo atid ayaa ma aragtay diyaarsan oo qoray marka sheekha khayr Allah siiyo wuxuu og yahay wacyiga iyo hawsha iyo waxyaabaha ka jiraan qurbaha ayuu og yahay waa u mahad celinaya sheekhan ilaahay khayr badan ha siiyo howlaha la kala hayo iyo yacni waalidiinta qurbaha ku nool ayuu og yahay iyo qoysaska qurbaha laakiin dadka baraha bulshada ka qaylqaylsha ama ragaada ama dumar aadaan oo yacni dhankooda qofba qofka kale uu wax ka sheegayo sheekadooda waxa kama jiraan
laakiin wix xaqiiqda ayuu ka hadlayaa kheyr badan allah siiyo waxaana jeclaan lahaa rag iyo dumarba in maaragtay xushmada iyo wanaaga iyo qof kasta inuu qowlkiisa wanaagsan oo maaragtay ajirka uu ka helayo uu ku hadlo ayaa iska fiicnaan lahayd labadoodaba saasaan kula talin lahaa sheeqana aan dhageysano walaalaha insha allah tacaala igu cusub waan soo dhaweynayaa walaalaha kaleetana oo horey ila joogayna aad baan idinkaga mahadcelinayaa la joogeena waayadan waan yar mashquulsanaa hadda laakiin mashquulka waan kasoo baxay insha allah mashquul markasta waa la iskaga jiraa saana loo socdaa wadada loo maraayaa shaqooyinka iyo adduunyada iyo lagu jiraayo ilaahay subxaana watacaala noogama dhigo adduunyo aan aakhiradayna ku ilowno noogama dhigo adduunyada marka insha allah tacaala sheeqeena sharafta leh aan dhageysano insha allah maadaama dad wadamo badan kala joogaan dunida tacaladeeda ay wada daawanayaan fiidiyoyada dadka negatifeka ay soo duubayaan waxba kama oga dadka qurbaha unbaa ogaan kara oo ka warami kara yani waxyaabaha ka jiro meesha nolosha qurbahana ilaahi subxaana watacaala noo fududeeyo caruurtana allahna la koriyo way aad bay u adag tahay marka qoyskii xataa iyagoo labada dhinac hawsha ka kala wadaan oo dadkii wada shaqeynayaan hooyadii iyo aabihii ayaa haddana maaragtay waxay adag yihiin ilaahay subxaana especially markay caruurta dadka ay haystaan ilaahay intaana ilmo haysanina ha siiyo walaalaha awlaad aanan haysanin awlaad kheyr qabto baariyaal allah siiyo annagana ilaahay hano intay haysatana ilaahay subxaana watacaala ha u barakeeyo hana uu xifdiyo allah noo wada xifdiyo dhammaanteen maaragtay wadamo aanan isku dhaqan iyo isku diin aan ahayn baa joognaa saasaa xijaabadeeni ugu xiranahay wadadeena ku maraynaa ilaahay subxaana watacaala ayaan ka magan galnay shari shaydaan qof kastana waxaan filayaa sheeqa waan idiin soo dayn doonaa fiidiyogiisa qof kastana waxaan ugu duceynayaa insha allah tacaala aanan kula dardaarmayaa in aanan adkaarta la iloobin adkaarta subaxdii iyo galabtii aad bay muhiim u tahay ilaahayna ka magan gal shari shaydaan irida markaa ka bixaysa adkaartaada akhriso markaa soo galay sidoo kale adkaar kusoo gal adiga caruurtana bar insha allah tacaala hadalka yaa idinku daalinine sheeqaan dhageysano بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هويوينكا قربها عرورتا كوهايا وحان لا يهي مهدسنيدين شكرا جزاكم الله خيرا هويو سيدة هو محسنته مين والبا أي جوكتو إيه وقتي والبا أي جوكتو هويو وانولشا hooyo la-aanteed waa dhib marka hooyo in loo mahadceliyo oo la sharfo oo la weyneeyo ilaahay baa amray annagana muslimiin baan nahay waddadaasaan maraynaa laakiin maxaan ugu soo koobay ama aan u eri hooyooyinka qurbaha jooga waa mahadsan yihin maxaan u eri wax gooniya hooyo iyadoo meelba joogto ay dadaalayso carruurta u dadaalayso haddana kuwa qurbaha jooga dhib waxay qabaan aan kuwa kale aan qabin dadaal waxay bixiyaan aan kuwa kale aan bixinin sababtoo ah dhulkay taqaanay bay kasoo tagtay ummaday taqaanay kasoo tagtay jawigay taqaanay bay kasoo tagtay meel ayaan aqoon bay timid oy caruur ku haysaa oy la kala hadaa subixii ilaah khayrasi gabdhaha ama hooyooyinka qurbaha jooga waxay hayaan dowr aan aabbuhu qaban karin aabbuhu waa muhiim laakiin dowrka hooyada ayaa mar walba ka sareeya oo ka muhiimsan hooyooyinka qurbaha jooga iyagaa carruurta iskoolka geeya iyagaa ciyaalka ka soo celiya iyaga ciyaalka maxaa lalahay tabantaabiya waxaa arkaysaa hooyo maxaa lalahay hal cunug iskool uu aadayo laba kaleetana weli iskoolkii ayaan gaarin intay subii hore kacday carruurtii diyaarisay oo maxaa lalahay labadii aan socon karin intay gaari saartay kuwii kaleetana maxaa la gacanta hayso oo maxaa iskool geynayso hadhow waxaa arkaysaa iyadoo roob da-ayo inay haddana duhurkii ama marka 9 saac la gaaro iskoolka intay aado labana ay maxaa lalahay ku wado maxaa la gaari riixayso bushke maxaa la jeer maxaa lalahay midkeetan ay soo wado hooyada qurbaha joogta waxa laga yaabaa aabbuhu maasha khayr laa siiyo aabayaal badan baa dadaalaya laakiin waxa laga yaabaa inta badan inuu shaqo uu ka maqan yahay ama xabad uu ka maqan yahay ama safar uu ka maqan yahay baraf baa da-aya iyada unbaa caruurta wada roob baa da-ay iyadaa iskoolka geynaysaa dhibaataa jirta caruurta isbitaal bay u baahdeen iyadaa qaadaysa wallahi mararka qaarkood waxaa is leedahay kuwa kan waa raxmad ilaahi subxaana watacaala iyadoo hooyo sideeda naxariisay tahay haddana gabdhaha qurbaha jooga waxay wada hayaan hawl aad iyo aad u muhiima waxa laga yaaba suba intay soo kacdo
oo ay waqti hore kacdo oo caruurta ay diyaariso oo ay quraac u diyaariso u labisto u shallayso intay jaakada u xirto hadduu qaboob uu jiro iskoolkii ay geyso ay soo noqoto iyadoo weli quraacan inay gurigii hagaajiso oo ay nadiifiso oo dharkoodii ay dhaqdo haddana hadhow 9 saac marka la gaaro iskoolka inay ka doonto markay hadda keento qadadooda ay siiso si ay isaga daba meeraysanayso 4 saac 5 saac habeenay seexanaysaa iyadoo tacbaana oo lugaha kor u qaadi karin haddana saacada kadib way soo kacaysaa ciyaalkay diyaarinaysaa istaalada iyadaa taagan iskooladka iyadaa taagan iyadaa suuqii maxaa lahay taagan oo soo adeegaysaa maasha allah hooyooyinka qurbaha joogow ilaahu khayr ha idin siiyo ilaahay wanaag ha idin siiyo ilaahay ha idin sharfo awlaadiina allah idin wanaajiyo idinkana allah idin waajiyo nimankiinana ilaahay idin wanaajiyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin hooyo walba meel walba ay joogto shukran hooyooyinka qurbaha caruurta ku hayana aad iyo aad baad u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu